Assalaamu calaykum. Waa mar kale iyo xog xiiso leh. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dhaho videogana like saar. Guesty waa mid aad ku maamuli karto kombiyuutarkaada weliba adigoon adeegsanaynin wax keyboard ah ee aad adeegsanayso controller Guesty. Waa mid aad ku hagi karto drone-kaaga adigoo gacmahaaga u leexinaya hadba nooca aad rabto. Waxbaad ku qori kartaa adigoo farahaada ku cabiraya xarfaha. waxbaad ku safgareyn kartaa sidoo kale waa nidaam kuu sahlayo inaad si sahlan u isticmaasho CP-gaada ama kombiyuutarkaada. The next future waa mustaqbalka xiga. waa gawaarida rakaabka dadka qaada. waa 4 taageer leh. waa 6 kursi oo lagu daray 4 ruux oo istaag ah. waa dheerar dhan 2.7 mitir. mawjaduhu si automatic ah ayay u mari karaan wadooyinka caadiga ah. iskood ayay iskugu xirmaan. weliba xilliga ay yihiin isku jiho waa kuwa isku xirma. tigidhka waxaa lagu jartaa online iyadoo lagu jarayo tigidh weliba nooca QR scan adigoo saaraya goobta QR lana scan gareynayo tigidhkaada sidaana aad ku galayso. Form 2 waa mid ka mid ah waxyaabaha cajiibka ah ee ugu dhaqsiyaha badan abid. waa 3D printer aad ku daabacan karto caagagga. waa mid la eg systemka kombiyuutarka ku shaqeeya Wi-Fi connection. aad ku samaysan karto wax kasta oo caag ah adigoo xaafadda jooga. wuxuuna ku shaqeeyaa hanaankan laser isagoo shayga aad sawirkiisa geliso oo caaga kuu soo saaraya. waana desktop printerkii ugu horreeyay ee abid la sameeyo. Hyperlap 2 waa mid loo dhisay safarada degdega ah. waa mid ku soconaya xawaare ka dheereeya kan ay ku socoto diyaaradda oo ah 10 kilomitir saacadii. waa 3 laab ka dhaqso badan kan diyaaradda. waa 10 laab ka dheereeya kan tareenka caadiga ah. waa mid leh marin aamin ah oo la isku halayn karo. tijaabadii ugu layaabka badnayd ee lagu sameeyay Hyperlap 2 waxay ahayd San Francisco iyo Los Angeles. waa distance u dhaxeeya 382 mayl ama 615 kilomitir. wuxuu ku tagay Hyperlap 2 43 daqiiqo halka diyaaradda caadiga ah ay u soconayso 1 saac iyo 28 daqiiqo. gaadhigana 6 saacadood uu u soconayo. Hyperlap 2 waa xawaare aan horey loo arag. Nike Mag shirkadda caanka ah ee Nike waa mid leh suuq qaali ah oo dadka taajiriinta ah ay wax ka iibsadaan. Nike Mag waxaa lagu jilay film 1989 iyadoo 30 sano la isku dayay in la soo sameeyo kabahan. ugu dambeyn waa lagu guuleystay sameyntooda. waa kuwa xarkaha iyagu iskood isku xiraya la ekaysiinaya kabta cagtaada. sidoo kale waxay leeyihiin LED light screen waana kabihii ugu horreeyay ee abid la sameeyo oo qaata charge. balse waa kuwa qaali ah oo qof walba uusan iibsan karin. The Bad
5G oo ka dhigtay tiknoolajiyadda inay horumar xawaarad sare ku socoto gaarsiiso ayay shirkadda Einride samaysay T-Bud oo ah gaari xamuul ah oo iskii u socda oo madax bannaan iyadoon hadda la dhammaystirin laakiin haddana waa mid laga hagi karo dhulka sidoo kale ku shaqeeya Google Map oo u kala gooshi kara laba wadan isagoo leh kaamirooyin la mid noqonaya inaad gaariga wado wax kastana aad la socon karto. kani waa Aidium waa mid ka mid ah waxyaabaha aan filmaanta future-ka ku aragnay in badan waa miiskii ugu dheeraa ee Apple la sameeyo waa shaashad leh 8 qaybood oo mid walba leh hannaan u gaar ah wada shaqayn ay ka dhaxayso waana mid gacanta lagu hago lehna maqal iyo muuqaal iyadoo ay ku midoobeen shirkadaha technology-ga ama software-rada sida Windows 8 Java iyo kuwa kale oo badan oo ku shaqayn karo miiska Aidium. kani waa Sleep Analyzer shirkadda Nokia ayaa soo saartay hannaan la soconaya jirkaada habeenkii markii aad seexato iyadoo xagga hoose firaashka laga gelinayo Sleep Analyzer wuxuu kugu soo dirayaa moobilkaada garaaca wadnahaada dhaqdhaqaaqa aad sameysay xalay neefta aad tuureysay haddii heerkii loogu talagalay ay dhaafsan tahay wuxuu kuu sheegayaa in hurdadaada aysan wanaagsanayn ee aad u baahan tahay xarun caafimaad.